بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashina Manaleke official walaalayaal naxariis darada iyo arxan darada iyo dhibaatada ka socota dalkii waad arkaysaan waxa ummadda islaamka lagu sameynayo waxa dhibaato lagu geysanayo waxa gabadha loo geysanayo ummadda Ilaahay oo dhan way arkeen way idinka arkaya gabadha miskiinada ah ee booyasada ka ah guriga ama jaariyad hadda saa u taqaanaan sila loo geysanayo wax bina aadmi u dul qaadan kara maaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awoodiisa ayaa waxaan ugu baryayaa inuu Rabbi subxaanahu wa ta'aala u gargaaro gabadhaana uu ka soo saaro meesha ay ku jirto umalayn maayo inay ku badbaadi doonto umalayn maayo in lagu dayn doono halkaas ay ku dhimanaysaa haddii ku sii jirto maamulka Somaliland dawladda Somaliland madaxda Somaliland waxaan ka codsanayaa in haddii in naxariis ku jirto gabadha laga gaaro wargaal baan sidaa loola dhaqmin iska daa ilmo yar oo muslimado Ilaahay gacantaada soo geliyay waa gabar yar oo u shaqeynaysa oo Oromo ah oo Hargeysa guri ka shaqeynaysa oo sidaa loola dhaqmayo sidii ayga cuntada loo siinayo waxa la siinayaa waa quraarado waa dhalooyin jajabay waa dambas iyo dhuxul iyo rooti qalalan waxay ku dilayaan tib bay ku dilayaan ul ay ku garaacayaan gabadha yar waxay leeyihiin afkooda ka leeyihiin waa rajo iyo agoon Rabbi subxaanahu wa ta'aala maalintu hooyadii aabaheed ka qaaday gacantaada soo geliyay Rabbi wuxuu kugu fiirinaya ibtixaan bay kugu ahayd laakiin ibtixaanka waad ku dhacday gabadha Soomaaliyeed Rabbi subxaanahu wa ta'aala awlaad baad leedahay waadiga leh awlaadeedii roodhi ka cuntay waadiga leh wuu ku tusi doonaa waadna arki doontaa dhaxalkeeda waxaad gabadha ku sameynaysid adiga iyo kuwa lamid ah iyo dumaro badan oo caruur yar oo rajaya ama aayaha u noqdeen abood ha qabeen ama eedaha u noqdeen oo walaalkeed hala dhasheen caruur badan ba sida loo silic dilaa maalin walba Rabbi subxaanahu wa ta'aala wuxuu ma waayin maalintu waalidkood ka qaaday waxbuu ku fiirinayay ibtixaan adiga lagu fiirinayay ahayd ibtixaankiina waa adiga ku dhacay qof bini aadmi iyo duruuf ku keentay ayaad sida ayga ula dhaqantay naxariis daro ula dhaqantay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un dad muslimiina la isku sheegaya waa la kor taagan yahay gabadha yarta sida loo gelayo mid baa leh iska daaya miskiinada Ilaahay ka baqa waa naagtan isriima dhacjalada duubaysa inay ajalada duubto kaliya ay u fadhidaan noogama darino alxamdulillah caalamka arkaya waxa gabadha loo geysanayo lama ogeyn waad ku maadsantahay inaad soo duubtay laakiin maadaama aad duubtay hadda waa inaad wax ka qabataa sharciga waa inaad la istaagtaa haddaad qof muslina tahay waa gabadha duubtay waa inaad sharciga geysaa gabadhan sida loola dhaqmayo gabadhan biyo karkaraya ku shubayaan umalayn maayo inay sidan ku badbaadi doonto hadday ku sii jirto sidan ay si ku xun baa loola dhaqmayaa gabadhan noloshii oo dhan baa lagu ciriiriyay meeqa cishaada ha cunun bay leedahay way ogtahay inay waxba siinin roodhida baa caruurtayda ka xadda bay leedahay way ogtahay inay naflay tahay baakad yar iyo kartoon yar oo koona ah bay iska jiiftaa hurdadu meelna kuma gaarsiiso markay daashay bay gamaacda waxa lagu kiciyo weydinka arkaya madaxa wax lagaga dhufta Rabbi subxaanahu wa ta'aala soo arki maayo allihii adiga guriga ku siiyay ayadana wuu awoodaa allihii hooyada iyo aabaha ka qaaday wuu ku tusi doonaa waxa aad ku sameynayso iyo sida aad u geysanayso Rabbi ha ka aaro Rabbi subxaanahu wa ta'aala ha ka aaro sidaad ula dhaqmayso gabadha miskiinada ah Ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu ku tuso dhibaatadaad ilmaha yar u geysanaysid awlaadaada habaari maayo waayo waxa may galabsan waa sabiyaala waxba galabsan laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adigu ka goyn doona Rabbi waxaan kaaga baryayaa marka hore inuu ku soo hadeeyo qofta dumar ee sida u dhaqmaysaa si aad naxariis ugu yeelato qofta miskiinada hadduu Ilaahay hadeen kuugu talagelin Rabbi subxaanahu wa ta'aala dunya aakhiraba kugu ciqaabo adiga iyo kuwii ciqaabayay ee gabadha yarta miskiinada sida u galayayba Rabbi subxaanahu wa ta'aala ka jaro war dawladda Soomaaliland waxaan idinka codsanayaa please sidaad gabadhii horeba aad ugu asxaan fasheen gabadhii laana waa lagu soo diray ku soo diray way idinka u naxariistay ee farajka ee u noqotay videogeera la soo duubay gabadhan inaad u naxariisataan oo meeshan ka soo saartaan ayaan idinka codsanayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u gargaaro miskiinada
way silciyeen way dileen way baabi'iyeen laydin sii qaadiyo laydin gogo haddaan hadayn alla idinku talagelin alla xaasisana bal idinku dhacdo habal waxaasay ula dhaqmeen tahay sida eyga u tuur bay leedahay eeg naxariis darana naxariista lagaa qaad naxariista lagaa qaad إنا لله وإنا إليه راجعون waxay tiri waa cunaysaa la Soomaaliga waxa ku adag waa cunaysaa bay wixii moodinay leedahay waa uraysaa ama hooyada bay caayaysaa ku ti أنا هويدا عايسة نقل حدر هويدا معايا والله هويدا معايا هلا متشاها غير الكويا يا كلتشر ترى لا يصير هذا ودي إيش أقول راح يسنيسو قف بقى قف كتورشر كيس عقابتي كو راح يستا نحريس ماله حبنا نحريس اللي قومي وقلنا جاهز maamulka Soomaalina hadda idan gabdhahan qabanin walla cuqubada way soo gaaraysaa Hargeysa cuqubada way soo gaaraysaa hadda waxba laga qabanin halla xiro naagahani inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ya saw dhaqma qof islaam saw ma dhaqmo قف إسلام صاوم دقمه ورجيا أقول والله